inta aynaan bilaabin mawduucan ku saabsan waddanka Japan waxaan dul istaagaynaa qiyaasaadka laga sameeyay diinta Islaamka iyo sida ay u sii kordhayso dadka soo galaya diinta Islaamka iyo isbarbardhigga Islaamka iyo diimaha kale ee adduunka ka jira. dadweynaha haysta diinta Islaamka ayaa noqday kuwa sii kordhaya qarnigan 2013 tiro koob la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dadka haysta diinta Islaamku yihiin 1.6 bilyan waxaana la qiyaasay inay ku darsami doonto 2.9 bilyan sanadka 2050 qarniga 12 daraasaad la sameeyayna waxaa la sheegay inay tahay diinta Islaamku diinta kaliya ee sida dhaqsaha u fidaysa. You believe there's one God? Yeah. You believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? Yeah, 強制されてません。 Are you doing dadka it out of Islaamka your own ayaa free ku will? nool wax ka badan 200 oo wadan oo adduunka 50 dal oo kamid ah dadka badankoodu ama majoritigoodu waxay haystaan diinta Islaamka. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. MashaAllah, you become Muslim. haddaba haddaan u imaano waddanka Japan wuxuu ku jiray wadamada ay ku yaraayeen dadka haysta diinta Islaamka. dadka qaadanaya diinta Islaamka ee waddanka Japan ayaa waqti xaadirkan sii kordhaya waxaana jira laba caqiido oo ay aaminsan yihiin dadka Japan waxaana la kala dhahaa Shintoism iyo Buddhism halka diinta Kiristaanku ay noqonayso saddexaad. dad gaadhaya 1.5% ee dadka Japan ayaa raacay diinta Islaamka kana soo baxay diimihii hore ay haysteen. dadkan qaar ayaa dad ka yimid wadamo Islaama waxaana kamid ah wadamada ay ka yimaadeen Bangladesh, Pakistan, Indonesia iyo Iran. laakiin sanadadiina soo dhaafay khaasatan 20 sano ee soo dhaafay cadadka dadka soo galaya diinta Islaamka ee waddanka Japan ayaa kordhay. dadka asal ahaan Islaamka ee ka soo jeeda waddanka Japan ayaa qaatay qarnigii 14aad markii Japan xidhiidh la yeelatay Islaamka iyagoo la ganacsan jiray wadamada Carabta iyo China. wixii ka dambeeyay 1870 Islaamku wuxuu ka mid noqday waddanka Japan. taas ayaa taariikhdii ay ku soo islaameen dadka qaar oo Japanese ah. intaas kadib Islaam badan oo ka yimid bartamaha Asia iyo Ruushka ayaa soo degay Japan ka hor qarnigii 19aad. waxaa jiray meelaha qaar aan laga ogolayn dadka Islaamka. sidoo kale waxaa sii kordhayay qaadashada diinta Islaamka ragga Islaamka ee guursanaya gabdhaha u dhashay dalka Japan kadibna qaadanaya diinta Islaamka. waxaana kale oo qaatay diinta Islaamka rag professor oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala waddanka Japan. ilaa sanadkii 1900 waxaa sii kordhaya masaajidada laga dhisayo Japan. 1970 waxaa ku yaalay waddanka Japan 2 masaajid oo kaliya halka 2000 ay gaadhayeen masaajidada ku yaalay 24. sidoo kale 2017 waxaa la dhisay 90 masaajid halka waqti xaadirkan oo sanadka 2021 ay ku yaalaan 115 masaajid. masaajidkii ugu horeeyay ee Japan waxaa la dhisay 1935 waxaana la oran jiray Kobe halka masaajidka ugu weyn ee waqti xaadirkan la dhaho Tokyo-chami. ilbaaris laga sameeyay gudaha waddanka Japan ayaa lagu ogaaday 85% ilaa 90% inay yihiin dadka Islaamka ee degan Japan dad aan u dhalan halka 10% ilaa 15% ay yihiin kuwa u dhashay. And I'm a Japanese Muslim. dadka ku dhaqan ee muslimkaana waa kuwa kala duwan waxayna ku kala duwan yihiin waxyaabaha sida dhaqanka, dhalashada iyo sinjiyadaba. waxaana sii kordhayay in la helo waddanka Japan gudihiisa cuntooyinka loo yaqaan xalaal ee dadka Islaamka cunaan iyagoo ay furteen makhaayado fara badan dadka Islaamka ee ku dhaqan dalka Japan. haddaba saan wada